qof walba abuurkiisu sida uu uga duwan yahay dadka kale waxaa jiro dad ka duwan dadka caadiga ah ee la yaqaano. muuqaalkani waxaan kugu soo xulay oo aad ku arki doontaa dad gebi ahaanba ka duwan dadka normaalka ah ee la yaqaano. si aan u bilowna muuqaalka, haddii aad ka hesho muuqaalada caynkani oo kala dadka iskoonka dunida ka galay si aan kugu soo badino laagsaar mahadsanid. Roberto Isquivel Cabrera waxaa lagu sheegaa ninka ugu xubinka taranka weyn ee adduunka. ninkani waxa uu dhashtay dalka Mexico, waa 57 sano jir. ninkani dhibaatadiisu in badan ayuu qarsan jiray, balse ugu dambeyn markii uu gaaray heer uusan shaqayn karin ama meel uusan fadhiisan karin, waxa uu ku qasbanaaday in dawladda uu ka codsado caawinaad, taasoo ah in lagu xisaabiyo dadka naafada ah maadaama xubnihiisu uusan ka shaqayn karin. markii lagu baraarugay cabashada ninkani, meediyaha oo dhan aad ayaa loola yaabay Robert, dad badanna in ay ku qosqoslaan ayay sabab u noqotay. maanta Robert waxaa dhibayo in waddada si toos ah uu socdo, hab jiis ah oo kale ayuu ku qasban yahay in mar walba uu socdo. Robert familkiisu waa dad sabool ah oo waxba aanan haysan. markii uu meediyaha qabsaday waxa uu dalbaday in lagu daro rikoorka adduunka, balse waa loo diiday oo lama aqbalin in lagu daro rikoorka adduunka sababtoo ah dhaqaatiir baartay Robert waxaa lagu sheegay in xubnihiisii taranka 18 sentimitir oo keliya inuu yahay, inta kale ee dhirka ahna in maqaarkii u baahnaa in la gudo oo weynaaday inuu yahay. sidaasi darteeduna Robert buugga kaalimaha adduunka laguma soo darin. waxa uuna isagu sheegay inuu jecel yahay inuu ku biiro shirkadaha aflaanta anshaxumada si uun maalin halka uu ugaga taajiro. balse dad badan ayaa u soo bandhigay Roberto in qaliin lagu sameeyo, balse waa uu diiday in jirkiisu qayb ka mid ah in qaliin lagu sameeyo. sidani ayaa waxa uu dhahay, waxaan dareemayaa inaan ahay qof isbishiyaal ah. Victoria Wright waa gabar garkeedii uu la egyahay kalabar wejigeedii. waxa ayna gabadhani ku dhalatay xanuun genetically ah. xanuunkanina guud ahaan adduunka oo dhan dadka qaba waxaa lagu sheegaa 208 qofood oo keliya in ay yihiin. waxa ay Victoria sheegtay yaraanteedii filimaanta kartoomada ee TV-ga ay ku arki jirtay in dadku ay ku caanjireen. maantase waa haweeney ku qanacsan sida ay tahay, weliba waxa ay dhowaan soo saari doontaa buug ee hadda qoritaankiisii ay ku jirto. gaar ahaanna hadda blog ayay wax ku qortaa. Shiraadar Jilal waa nin cidiyaha aanan iska jarin muddo 66 sano ah, balse ninkani hal gacan oo keliya ayuu cidiyaha ku reebtay. dhirka cidiyihiisuna halkii farba waxa uu gaaray 190 sentimitir. tanina waa dhir weliba ka badan qof dhalinyaro oo 20 sano jir ah. shiraadar cidiyihiisu marka la isku dardaro dheer ahaan waxa ay gaarayaan dabaq 7 biyaano ah. si aysan u dhibin cidiyaha dheerna waxa uu isagu isugu laablaabay qaab cajiiba ee uu ku ilaalin karo. marka uu 80 sano soo gaaray shiraadar 2 sano ka hor 2018 ayuu cidiyaha iska jaray, balse cidiyaha meel kuma uusan tuurin madxaf ayuu lacag kaga iibsaday. waxa uuna doonayaa in dadka cijiyaashiisu ay soo booqdaan. qof walibana aad ayuu ula yaabaa cidiyaha 62 sano aanan la jarin. Idoxio haweeneydani dadku waxa ay ku qardaan Nicki Minaj, balse inagu ka Soomaali ahaan haweeneydani xaaska Grand B ayaan u naqaanaa. dadku se haweeneydani waxa ay ku tiriyaan qof ka duwan celilis ahaan dumarka caadiga ah. waxaa la weydiiyey in jinkeedu qaliin ay ku samaysay, balse waxay iyadu sheegtaa in natural mid dabiici ah sida ay ku dhalatay. dad badanse ma ay rumaysana, iyada oo jinkeedu qofkii arkaba uu la yaabayo. haddana waxa ay dunida kaga yaabsatay guurkeedii alfanaan Grand B. ilaa haddase ujeeddada guurkoodii lama fahamsano. Lupita iyo Carmen Andreda waa laba gabdhood oo 18 sano jir ah. waxa ayna isaga dhagan yihiin dhexda, inta badanna mataanayaasha sidani oo kale waa kuwa si degdeg ah ku dhinta, balse kuwani aad ayay uga duwan yihiin mataanayaasha kale. labadoodiina waxaa ka dhaxeey min hal lug. hal lug waxaa koontaroosha hal gabar, lugta kalena gabadha kale ayaa koontaroosha. waxa ayna ku qasban yihiin hal mar in ay wada socdaan. gabdhahani waxay u nool yihiin sida dabiiciga ee gabdhaha kale ay u nool yihiin. xitaa waxa ay wadaan mararka qaarkood baabuur. marka ay midood stylinka ay wareejinayso, midda kale fariinka iyo xakamaynta baabuurka ayay qaabilsan tahay.
barta Instagram-ka ayaa gabdhahanina si aad oo weyn u isticmaalaan. Sultan Kosina waa ninka ugu dheeray adduunka. Ninkani waxa uu dhashtay dalka Turkiga, kaliya inuu dheer yahay kuma koobna gacmihiisu, xitaa bani'aadamka caadiga ah laba jibaarkeedu ayay la eg yihiin. Tanina kaalinta gacmaha xitaa in adduunku u gala ayay u suurta gelinaysaa. Sultan Kosi dhirirkiisa darteeda maanta waxa uu ku qasban yahay inuu isticmaalo dhar isaga oo keliya qaas u ah iyo kabo isaga oo keliya loo qaabeeyey, balse waxaa ku adag in si toos ah uu socdo. Dhirirka badan si kastuu u yahay mid dadka oo dhan soo jiita, haddana waxa uu leeyahay xanuuno iyo dhibaatooyin kale. Mar walba uu istaago Sultan Kosi waxa uu ku qasban yahay in uu isticmaalo. Allegra Cole waa haweeney filim ay daawatay sabab u noqday in xabadkeedii ay weynaysato. kumanaan dollar ayay jirkeedu gelisay si ay u heli lahayd xabad weyn. Allegro dadka ama gabdhaha dhexdoodu in ay ka duwanaato waa wax aad ii farxad gelinayo ayay dhahday. Cabirka xabadkeeduna kiila ahaan waa 18 kiilo, marka ay socotana waa qof xambaarsan 18 kiilo. Wax dhib ama xanuun ahna kalama ay kulanto sida ay sheegtay Allegro. Maanta Allegro waxay u shaqaysaa modelka, sanadkiina $100,000 ayay ku shaqaysaa. Bilowgii Allegro ujeedkeedu ma uusan ahayn in caan ay noqoto, balse hobi ahaan oo keliya ayay sidaa u doonaysay. Balse markii ay ku guulaysatay, dadka waddada ayaa magac u yeelay. Benny Harlemna waa ninka ugu timaha dhaadheeray adduunka. Dhinac ninkani habka uu timaha u jartay waa qaab kale oo qofkii arkaaba uu la yaabo. Gabadhiisuna aabbaheedii ayay ku dayatay, iyaduna timaheedu waa ay deysatay. Barta Instagram-ka ayuu ninkanina si aad oo weyn sawiradiisii ugu soo bandhigaa.